gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo golaha guurtida Somaliland kalfadhi ay maanta isugu yimaadeen golaha guurtida kala hadlayay ayaa ka hadlay heshiisyo ay hore u wada gaareen Somaliland iyo maamulka Khaatumo waxaanu arrinkaasi ku tilmaamay inaanu hayn heshiis sharci ah ase aatee uu yahay tala soo jeedin kaliya oo ay wada gaareen maamulka Khaatumo iyo Somaliland waxaanu ku tilmaamay in lagu tilmaami karo heshiis marka la soo mariyo labada golo baarlamaan ee Somaliland xilligaasina lagu tilmaami karo heshiis ay wada gaareen Somaliland iyo maamulka Khaatumo asaate arrinkani uu joogo Cali Khaliif Kalayd iyo madaxweynaha Somaliland xilliga la soo gaarsiyo labada golo baarlamaan uu noqonayo heshiis rasmi ah arrintan heshiiskan madaxweynaha iyo Khaatumo kuwada riiqateen arrintaas hadda waxay joogtaa madaxweynaha iyo Cali Khaliif heshiis maaha waa soo jeedin weeye ha soo gudubto wayna labada goloba marta oo ay ansixiyaan markaas heshiis kale noqonayso ha ku riiqanine ha la soo gudbiyo processkeeda ha soo qaadato ha soo dhammaato dee markaasaynu wixii laynooga baahan yahay ka qabanay aad iyo aad baa u mahadsantihiin أحمد خالد فرح Ariel TV Hargeysa